dhirtu waa nolosheena waa halkudhigga sanadka xuska maalinta dhirbeerista qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku beegan 15 Abriil maalintan iyo kalena sanad walba guud ahaan dalka lagu qabto xuska maalinta dhirbeerista waxaana munaasabad ballaaran oo loo qabtay xuska maalinta dhirbeerista ay ka qabsantay xarunta wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Gabiley waxaana munaasabadaas ka soo qayb galay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Farxiye Barsaab ku-xigeenka gobolka Gabiley Cali Cabdi Cabdilaahi Alcase ururada bulshada aqoon-yahano dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Gabiley ay geedgeed ugu qaybisay bulshada kala duwan ee magaalada Gabiley ee caasimadda gobolka waxaana sanadka loogu talagalay in guud ahaan gobolka Gabiley degmooyinkiisa laga beero 2500 oo geed si kor loogu qaado bilicda iyo horumarka magaalooyinka loona helo magaalooyin cagaaran oo qurux badan waana dadaalada wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ay ugu jirto gaarsiyo mi ilaa magaalo waxaana isuduwaha deegaanka iyo barsaab ku-xigeenka gobolka ay si wada jira ugu beereen gudaha magaalada Gabiley dhir kala duwan taasi oo tusaale u noqonaysa bulshada qaybaheeda kala duwan ay beeraan isla markaasina ay soo doontaan dhirtani oo ugu diyaara wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Gabiley waran waxa halkaasi ka dhashay isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga gobolka Gabiley Farxiye inta dabadeed maanta waa maalinta ku aastaysan dhirbeerista Jamhuuriyadda Soomaaliland 15 Abriil isla markaa gobolka waxaan ka qaybin doonaa 2500 geed oo laga beeri doono dhammaan gobolka iyo degmooyinka oo loo diyaariyay dhir kale oo saayida oo la siin doono insha Allah inkastoo xilli lagu jiro roob la'aana ilaahay roobka ay noo keenay insha Allah bidnillaahi kariim dhamaantiin waxaan leeyahay Ramadaan kariim soo halkaas ka hadlay qaar ka mid ah ururada bulshada maamulaha dugsiga Sheekh Mudar Samee Cabdilaahi Cali iyo soo kale qaar ka mid ah bulshada kaarima bulshada anigoo ah Cabdirashiid Axmed Saad waxaan socda ururka Seeba waxaan ugu baaqayaa macnaha bulshooyinka reer Gabiley oo gobolku intuu ka kooban yahay inay dhirtan qaataan beeraan daryeelaan waa u diyaaray ay maxaan si volunteer ah iskaga qaataan oo dabadeeto ku beeraan maxaan dhahdaa goobahooga taaka waxaan joognaa wasaaradda dhirta iyo deegaanka taa oo aanu ka qaadayno dhirtii loogu talagalay magaranaysa dugsigan hoose Sheekh Maxamed Warsame aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waxaananu ballan qaadaynaa in dhirta tacabka la soo geliyo anaguna mid lamid aanu gelino way bismillaahir rahmaanir rahiim maanta dhirbeerista waan ka qayb galanaa aniga ciyaalkayguba waxaan u diyaarnahay inaanu beerno ubaxa iyo dhirta magaranaysa Gabiley waxa ugu noqotay meesha ugu qurux badan bay noqotay xagga dhiraynta iyo xagga ubaxa saaka aniga kuwayga yaraaba diyaar baan u nahay inaanu beerno aba soo beersan inaad beerto soo diyaar uma tihi inaad beerto soo aba diyaar uma tihi gabagabadina halkaas ka hadlay barsaab ku-xigeenka gobolka Cali Cabdi Cabdilaahi Alcase maanta waa 15 Abriil oo ku beegan maalintii loo asteeyay Jamhuuriyadda Soomaaliland dhirbeerista waxaan ku suganahay xarunta wasaaradda deegaanka ee gobolka halkan imika waxay noo yaalaa 2500 oo geed oo aynu beeri doono insha Allah ka ku guubaabinaya guud ahaanba degmooyinka in dhirta la beero khaasatan waxa farxad weyn inoo ah iyo wax lagu faano runtii degmada Gabiley caasimadda gobolka maanta geedka la beero inaan loo baqaynin oo aan xoolana cunaynin dhalinyarta iyo dadkiina ay barteen wadaniyada oo geedkii la beeray uu sidiisii isaga baxay tiyo aan waxna siligna lagu xidhin cidina ilaalinaynin marka runtii horumarkay ka mid tahay waxaan ku bogaadinaynaa gudoomiyaha golaha deegaanka iyo dhammaan golaha deegaanka ee Gabiley hawsha qiimaha badan leh ay qabteen way la xajiye telefishinka qaranka Gabiley